بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرك وزارة الدبدة وإسكاشي عالمية وزيرك وزارة الشغل يعلمها بالشدة أقاسمها لورتا جناسية وغيات جوتها وزارة الدبدة أقاسمها قدوميها بقى IBS بانك قلت لك قابل حفلة قربة بدل له دمانتين كسوق البرياشة بعد الصحافة قربة شوكته داودياشة سيد الله يفكر كل يوم داوني حفلة دبا دمانتين بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوي يوم معلومة ونعكسنا وتاريخ له إن laga fikiro oo lagu tashado sidii qurba joogta Soomaaliyeed ay doorkooda uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta dalka. waxa la gacmo biyo sacabada gacmaha looga dhigay waxaan aaminsanahay in dalka Soomaaliya ay xaalado badan soo maray meesha ugu weyn ee maanta dadka lagu horumarin karayana dadka adduunyada soo arkay dhaqaalana haya marka khaasan qurba joog khibrad haya dhaqaalaha wax laga yaabo qurba joog badan oo dadka waddan gudihiisa ka dhaqaalo badnaan karaan laakiin horumarro badan ka sameeyay intii qurbaha ay joogeen in dalka gudihiisa ay yaalaan fursado fara badan oo maalgelin badan looga samayn karo lacag looga samayn karo mar kale waxaan aad uga mahadnaqayaa wasaaradda arrimaha dowladda inay xafladdan soo dubaridday yani in laga fikiro in dadka qurba joogta ay waddankooda maalgashadaan waxaa jirta dhammaan siday madaxdii ugu horreysay sheegeen in dadka Soomaaliyeed fara badan ay maalgelinayaan Turkiga ama ay maalgelinayaan ay meelo hore maalgelin laakiin waxa weeyaan dalkeena hooyo u yahay lafdhabarta kooban meesha suumandeena iyo magaceena iyo dowladnimadeena wata la dalkeena hooyo saas darteed waxaa jirta fursado fara badan oo la maalgashan karo oo dalka taala oo waxa weeyaan waxa ugu horeeya meelo fara badan haday qaybaha kala duwan noqoto productive sectors kamid yihiin oo wasaaradda beeraha oo kale wasaaradda xanaanada xoolaha oo kale wasaaradihii kalluumaysiga oo kale dhulka kalluumaysiga oo kale dowladda Soomaaliyeed runtii say wasiiradii horeba ka hadleen si kasta oo wax maalgelinta dadka maalgelinaya fursad u heli karayaan ama loogu sahli karayo yani dowladdu ka shaqeynaysa laakiin dadka Soomaaliyeed bay tahay inay u soo jeestaan qurba joogta ah inay dalkooda dib u soo eegaan oo sidii ay uga qayb qaadanayaan lacag nooga samayn lahaayeen runtiina way jirtaa dad fara badan oo qurba joog ah oo soo noqday dalka gudihiisa oo haddaan ugu xanaanada xoolaha nahay waxaa jirta rag fara badan oo geel dhaqday oo caanaha geela laga maarmay caanihii meelaha laga soo qaadayay magaalooyinka ama meelo fog laga keenay caan laga keenayay in ay sameeyeen maalgelin badan oo geela ah oo xaggi geela ah oo caanihii magaalada la keenayo ay dadka magaranaysa ay noloshooda aad ugu tiirsanaatay mid ka shaqeeya mid iibiya runtii waxa weeyaan waa meelaha ugu wanaagsan waxaa jirtoo kale hilibka oo kale lo-da oo kale inta fara badan leh xoolaha hilibka guud ahaan ay wadamada khaliijku inoo furan yihiin khaasatan Sacuudi Arabiya oo kale halkii neef xoolo oo isku dhamaystiran aan keenaynay ay maanta diyaar ka yihiin laynaga aqbalay inaynu hilibkii geen karno iyadoo oo lagu qancay yani hilibka Soomaalida xoolaha Soomaalida markii horena laynaga qaadanayay waxaa jirtoo kale nimanka carbeed marka meelaha xoolo aad ugu dhoofaan wax kamid ah Berbera iyo Boosaaso wali Muqdisho ka dhoofaan iyo Kismaayo wax yar laakiin inta ugu fara badan waxa la ajaanib niman carabo waa leh maxaa diidaya inay maxjarada ay rag Soomaaliyeed furtaan oo dowladda Soomaaliyeed garab istaagto marka waxaan leenahay xagga livestock ama xanaanada xoolaha dhoofintooda waa in il gaar lagu hayo dhaqaalaha dadka Soomaaliyeedna boqolkiiba 70 ama 80 wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha oo hadda maanta meel fariisatid waxa ugu yar waa sambusa hilibka ku jira waxa markaa runtii waa in sektorka la soo eego meel kale oo waxaa jirta fursado kale oo dadka malaha xoolaha xaggaas u yaqaaneen xoolaha digaaga ka mid ah digaaga oo runtii waxaa laga keenaya dibadda ama digaag Brazil laga keenayo oo la keenayo Muqdisho ama laga yaabo in Hargeysa la keeno marka maxaa diidaya in inagu aynu samaysana farm ama dhulki midda kaliya inta badan ay ku guuldaraysaa malaba khibrad laakiin waxaan la sahli karayaa in ay dadka ganacsatada faraha waaweyn ganacsatada xooga waa nin laga yaabo wax yarna ay soo jiidad bilay kaa gubataaba haddaad 10 kun bahaysid 10 kun bilay kaa gubataaba laakiin bangiyada waxaan ka codsanaynaa cabdirasaqiyo inay bank ay garab qabtaan dadka si digaagii oo kuntii wax waddankeenu soo saaray aanu cuno waxa weeyaan marka waxaan leeyahay
مهما ورجعتين رجع لحد دورنا ودقش واجيل رجع لحد سي دورنا ودقش واجيل إن runtii xagga xoolaha loo soo jeesto oo beeraha laftooda ay fursad weyn jirto oo ma garanaysaa kalluumaysigeeni iyo waxa weeye xoolo dayacan weeye waxaad arkaysaa dalkeena meelaha IDP-da oo kale ama dadka maaragtay waddanka gudihiisa ku barakacay oo kale in ma garanaysaa halka laga yaabo inuu qofkii qurba joogga culays badan ba haysto maalin walba waxay usoo dirayaan lacag dadka gudihii jooga waxaa laga yaabaa haddii la yidhaahdo war wax in karto qofka maalgelin karto kale garab qaban karto kale in qofkaas uu ka bixi karo muddo ma garanaysaa macaawimada marka runtii waxaan mar kale aan ku celinayaa si adkeynaya hadallada madaxda iga horreysay iyo ganacsada iga horreysay bay yidhahdeen oo ah yani qurba joogga in dalkooda kusoo laabtaan ha ka baqanina dalku waxa weeyaan bisanka u qabto waxaan leenahay soo dhawaada waddanka waan joognaa waxaan leenahay ilaahay inahay ku guuleeyay wixii ma garanaysaa fikir ay wanaagsan haysaan dowladduna diyaar bay idinla tahay sidaa wasiirka uu hore u sheegay yani wixii meelihii warshadaha waaweyn oo kale dadku warshado ku horumari karaa waxyaaba badan ayaa la dhoofiyaa midna ha la ogaado ilaa iyo 1800 waqtigii dee aynu bilownay inaan cunto dibadda ka keensano ilaa yoomin haada ganacsatada waxay qaarkood ku fikirayeen bariis iyo baasto dibadda laga keeno maxaa diiday in warshadahan maalgashan iyo beerihii halkan jawhar iyo dhulkii barwaaqada ahaa iyo janaale iyo dhulkii waxa weeyaan in la maalgeliyo oo ganacsada Soomaaliyeed ay maalgeliso si looga baxo ma garanaysaa nolosha isku dultiirsanaanta ah iyo IDP-yada iyo faqriga saboolnimada looga baxo marka waxaan dhiirigelinaynaa maaragtay aad iyo aad ha lagu soo dhiirgado ha la maalgashado dalka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu